kulanti wacan dhammaan daawadayaal waa barnaamijkeena akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Jubba. Wargeysyada caalamka ayaa soo tabinayay in dowladda Mareykanka ay ka iibsato gaaska dabiiciga waddanka Ruushka iyadoo isla markaana ka sii iibisa dowladaha Yurub iyadoo la wada ogsoon yahay in saliidda dabiiciga ee Ruushka ay saareen cunaqabateyn wadamada Mareykanka iyo Yurub balse kuma jirto saliidda nadiifka ah cunaqabateyntaasi. Waxaan sidoo kale soo ogaanay kambaniyada Ruushka uu Mareykanka dul saaray cunaqabateynta kuma jirto kambaniga ugu weyn ee soo saara saliidda dabiiciga ee dalka Ruushka ee loo yaqaan Luk Oil. Shirkadda sifaysa saliidda dabiiciga ee loo yaqaan Sicily ee laga leeyahay dalka Talyaaniga taasoo sifaysa saliidda dabiiciga wadamo badan oo caalamka ah ayaa boqolkiiba 90 saliidda ay sifayso ka timaada dowladda Ruushka. Kadib markii ay sifayso saliidda ka timaada dowladda Ruushka, dowladda Talyaaniga ayaa la wareegta mulkiyadda saliiddaasi. Ugu dambeyntii saliidda Ruushka ee lagu sifeeyay dalka Talyaaniga ayaa soo gashay suuqyada Mareykanka iyadoo laga iibiyo shirkadda weyn ee ExxonMobil taasoo u iibgeysa kaydadka shidaalka waddanka Mareykanka. Wall Street Journal ayaa sheegay in saliidda dalka Ruushka ay si wanaagsan looga dhaxgado suuqyada Mareykanka. cunaqabateynta enerjiga ee la saaray Ruushka wax sahmeynaya uma aysan geysan u iibgeynta suuqyada caalamka shidaalkeeda. Dowladda Mareykanka ayaa ka reebtay cunaqabateynta ay ku soo rogtay dowladda Ruushka saliidda nadiifka ah ee ka timaada dalka Ruushka waa haddii ay leeyihiin wadamo kale ama shakhsiyaad aanan u dhalan dalka Ruushka kuwaasoo ku sifaysta crude oilka meel ka baxsan dalka Mareykanka kadibna soo geliya iyadoo nadiif ah dalka Mareykanka. Sida ay soo xiganayaan miidiyaha caalamka, shirkadda Luk Oil ee laga leeyahay dalka Ruushka ayaa u dhoofisay dalka Mareykanka 5 milyan oo fuusto oo saliidda cayriinka ah tani markii ay bilaabatay cunaqabateyntii uu saaray dalka Ruushka. Dhanka kale, White House-ka looga aramiyo dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay ka xanaaqeen Saudi Arabia ayagoo ku eedeeyay inay la safteen dalka Ruushka kadib markii ay kor u qaadeen qiimaha oilka caalamka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga ay kala kulmi doonto cawaaqib xumo safashada ay la safteen dowladda Ruushka. Golaha amniga qaranka dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay dib u fiirin ku sameyn doonaan xiriirka kala dhaxeeya dowladda Sacuudiga. Xildhibaanada labada aqal ayaa sidoo kale ka hadlay arrinka Sacuudiga. Senator Bob Menendez ayaa sidoo kale sheegay inuusan aqbali doonin wax xiriir ah ku saabsan dowladda Sacuudiga ilaa ay cadeynayso booskeeda ku aadan dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka. Dhanka kale, dowladda Sacuudiga ayaa iska fogeysay eedeymaha ay u soo jeediyeen aqalka cad ee ku aadan inay la shaqeeyeen dowladda Ruushka si ay kor ugu qaadaan qiimaha batroolka caalamka. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in arrinta batroolka wax shaqo aysan ku lahayn siyaasadda caalamka. Haddaba ma laga yaabaa in Sacuudiga in yar uga fogaanayo xiriirka 40 sano ah ay la lahaayeen dowladda Mareykanka, mise laga yaabaa inay xiriir la sameystaan quwadaha cusub ee Ruushka iyo China? Adigu sidee kula tahay dhageyste?